أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم walaalayaal waa duruustii taxanaha ahayd oo aan kaga sheekeynaynay raggii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu tarbiyeeyey siday adduunyada wax uga bedeleen siday ahaayeen sida ay ay dhinac walba uga dhammaystirnaayeen taasoonan la koobi karin ammaantooda iyo waxa ay taariikhda ku soo kordhiyeen iyo kuwa dadka kale ama ragga maanta jooga ee ay tarbiyeysay xadaaradda reer galbeedka iyo madaaristooda ka soo baxay islaamna sheeganaya ku abtirsada islaamkana aadka u nacab kuwaasoo u arkay islaamku inuu yahay wax mudan sidaan sheegay masaajidada meelaha in lagu xiro lagu qafilo labadaa qolo ayaan waxaan idhi isbarbardhig ayaan ku samaynaynaa darsigana marka waa darsigii ugu horreeyey oo aan ku bilaabayo taariikhdii saxaabigii ugu horreeyey khaalid ibnulwaliid waxaan khaalid u doortay walaalayaal asxaabta rasuulku sida kitaabka le usdulqaaba ku cad 100 kun kor bay u dhaafeen rasuulkuna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam saxaabadayda mid alla midkaad kaga dayataan oo aad raacdaan oo aad ku dayataan buu yidhi waad ku hanuunaysaan qiimaha ay lahaayeen wax la koobi kara maaha mid kasta wuxuu badan yahay kitaab in laga qoro laakiin si guud baan rabaa inaan dhowr saxaabi aan ka soo qaato iyo raggi ka dambeeyo taabiciinta iyo taabiciinta wixii aan ka gaarno kadibna aan calmaaniyadda iyo dadka ay tarbiyeysay iyo sida ummadda muslimiinta ah diintooda looga leexiyey aan markaa waxyar ka sheego maanta waxaa nasiib u yeelanay inaan ka sheekeeyo khaalid ibnulwaliid muxuu yahay khaalid ibnulwaliid khaalid ibnulwaliid waa geesigii dagaalada taariikhda soo hoyay galay waa ninka weligii jaahiliyatan waa islaaman aan laga guulaysan sida la sheegay 100 dagaal ama 100 macraka ayuu galay weligiina ciidan uu la socdo lagama adkaan lagamana guulaysan khaalid waxaa la yidhi wuxuu baaric ku ahaa dagaalka inuu joogteeyo oo kartid dagaal ayuu lahaa oo nin dagaalka u dhabar adeega ayuu ahaa nin akhlaaqda dagaalka dhowra ayuu ahaa nin wuxuu ahaa baa la yidhi khudadda iyo istaraatiijiga ciidanka dejintiisa ku fiican kaartada dagaalkan isagaa qori jiray hogaamiye wuxuu ahaa aanan leexan oo aan gamban oo cadowga u arka inuu daqiiqad gudaheed kaga takhallusayo hankiisu wuxuu gaarsiisnaa wuxuu ku kalsoonaa xataa xilligii jaahiliga inuu ninku la dagaal uu ka guulaysanayo markuu dee muslimana kaba sii daranbaba wuxuu ahaay baa layidhi nin ku dadaala mujtamac xoog leh inuu dhiso fikirkiisu ninuu sarreeya ayuu ahaay baa layidhi oo aad u fekera nin cadiyad badan ayuu ahayaa layidhi oo wax quur leh oo aan bakhayl ahayn waxaana la sheegay qofku hadduu wax quuro oo uu wax bixiyo sidiisana waa geesi waa laba tilmaamood oon kala harin shujaacnimada iyo waxbixinti baa layidhi baynamaa bakhaylnimada iyo fulaynimaduna ay laba tilmaamood oo aan kala harin ay yihiin waxay raaciyaan dadka qaar carabta aad uga faallooda geesinimada iyo waxbixinta iyo fasaaxada layidhi khaalid intaba wuu ahaa nin waxbixiya ayuu ahaa nin fagara ka hadalka ku fiican buu ahaayo aad fasiix u ah oo hadal yaqaana nin geesigana wuu ahaa hooyadii cumaysaa ayaa markuu dhintay gabay cajiiba ku barooratay waxay tiri iyadoo ka faallaynaysa anta khayrun min alfin min alqowmi idaa maa kubad wujuuha rijaali ashujaacun fa anta ashjacu min laythin qadanfarin yaduudu can ashbaalin ajawaadun fa anta ajwadu min sayri haamirin yasiilu bayna aljibaali waxay tiri khaalidow raggu markay afgembi u dhacayaan bay tiri ama ragga hortooda aad taagan tahay 2 milyan oo rag ah ayaa 2 milyan oo qof baad u dhigantaa bay tiri hooyadii baa ammaanaysa geesi baa tahayay tiri libaax ilmihiisa lagu soo weeraray oo carruurtiisa difaacaya oo la raba carruurtiisa in wax la yeelo sida uu geesiba u yahay libaax awal geesi ahaa ayaa waad ka geysan tahay bay tiri waxay tiri faras dheereeya oo ninka jawaadkaana waad ka dheeraysaa bay tiri oo sida taatikada dagaalka iyo laba isrogga iyo dagaalka hadba meel ciidanka uga imaanayso ciidanka u kala ratibayso waad ka surco badan tahay waa ka degdeg badan tahay tii roob
xoog leh oo buura ku da-ay oo markaa roobkuna ay buuraha ku shubayaan biyaha saa u daadanaya buuraha ka soo daadanaya waad ka dheeraysaa ay tiri waad ka orod badan tahay hooyadii ayaa gabayga ku ammaantay cumar ibnu khadaab markuu maqlay wuxuu yidhi wallaahi waa run sida ay sheegtay buu yidhi waa yahay khaalid ikhwaani khaalid ibnu lwaliid wuxuu ahaa carab dhalasho ahaan quraysh buu ahaa reer bani maqsuum ayuu ka ahaa waxay isku haybahaayeen ninka la yidhaahdo abijahal waxaa aabbihi ahaa waliid ibnulmugiira ninka qur-aanka lagu sheegay waliid ibnulmugiira oo aabbihi ahaa ninka ragga quraysh ugu ladan ayuu ahaa waxaa la sheegay aabbihii hodantinimo intuu ka gaaray kacbada marka la dayactirayo quraysh oo dhanna sanad qayb bay ka qaata qaybta kalena isaga qaataa layidhi ama wuxuu yidhahdaa sanadkana quraysha dayactira sanadka dambana anaa dayactiray quraysh oo dhan buu ku hanti badnaa macna ma saamayn baa layidhi khaalid wuxuu cumrigiisa ku dhammaystay xilligii jaahiliga faras dushi iyo seef inuu muxuu ahaa ayuuba faras dushiis iyo seefta ayuu wax walba ka fadili jiraa ayuu ka jeclaa baa tijaarada iyo dhallinyaradu inay wax kale ku mashquulaan nin saas ayuu ahaa rag badan baa wax ka qoray muslimiin iyo gaale intaba waxaa la sheegay quruun fara badan wadamadan jaamacaadka yurub in lagu dhigayay istaraatiijiyad khaalid alxarbiya qaabkii khaalid oo dagaalada u geli jiray in lagu dhigi jiray ilaa haddana waa lagu darsaa ayaa la yidhi rag badan baa wax ka qoray muslim iyo wakayruhum aanan muslimiin ahayn raggii muslimiinta wax ka qoray waxaa ka mid a ninkii la yidhaha aqaa ibraahim waa genaraal bakistaaniya oo aad mataqaanaa muxuu ahaa kuliyatulxarbi bakistan raggi ka baxay ahaa oo aad ciidamada meel sare ka gaaray buug buu ka qoray nasiib wanaag buugga magaciisa ma aanan helin waxaa kaloo wax ka qoray nin la yidhaahdo cabaas maxamed alcaqaad oo adiib ahaa oo aanan xilli dhexe dhintay buug oo magaciisa la yidhahdo cabqariyatu khaalid waxaa kaloo wax ka qoray nin mu'arikh caskari oo reer ciraaqi ahaa taariikhyahan taariikhda militariga ee reer ciraaq aad u takhasusay oo la yidhahdo maxamuud shiid khadaab kitaab cinwaankiisa la yidhahdo khaalid ibn lwaliid akhwaani khaalid markuu muslimiintuusan muslimiin waxaa la sheegay walaalkii waliid ibn lwaliid ayaa muslimay markaasuu khaalid waraaq u diray wuxuu yidhi nebigaa weydiiyo yidhi awa khaalid waxaan islahaa waa nin muxuu islaamka soo gelayay oo aad baan nebigu aad baan raje uga qabay buu yidhi khaalid warkiiba u sheegay nebigu waa ku hadal hayuu yidhi saasuuna ku yidhi khaalid ma uusan goosan inuu markaa muslimo wuxuu soo aaday baa la yidhi muddo markuu ka fekerayay kadib wuxuu go'aansaday inuu diinta muslimka soo galo oo islaamka qaato isagoo markaa madiinuu soo aaday waxaa marka ay waddada iska haleeleen nin la yidhaha cuthmaan ibnu dalxa alcabdariy iyo camar ibnu caas ninkii siyaasiga ahaa oo daahiyatulcarab la yidhi oo masar furtay najaashi markay muslimiintu u hijroodeenna ninkii quraysh ay ka daba dirtay oo quraysh safiirkii quraysh ay dirtay ah oo hadiyooyin iyo laaluush waday si asxaabta rasuulka loo soo celiyo hogaamiyaashii carabtana ahaa nin khataran ahaa oo siyaasiya labadaa nin bay jidka iska haleeleen baa la yidhi marka koowaad markay is arkeen maka iyagoona muddo waxyar ka tegey oo macnaha waxyar kasii socda baa ninka kale tawriyaystay uu yidhi meel kalean u socday islahaa armadaad intaad sheegto quraysh ninkan uuba adiga kii ku jaajuusaya uu yahay muddo markii la socday meel dhex isaga hor yimaadeen dee muddo xoogaa la socday ayaa ninba ninka kale u caddeeyey ujeeddadu u socdo saddexdooda markay galeen nebigana calayhi salaatu wasalaam xadiis buu wuxuu ku yidhi maka waxay idiin soo tuurtay raggoodii ugu cuslaa anna makata qad alqad ilaynaa aflaada kabadiha waxay maka noo soo tuurtay buu yidhi raggii ugu cuslaa oo maka gudaha u jira raggii ugu cuslaa oo ugu muxuu ahaa mudnaa sheegis ayay noo soo tuurtay buu yidhi nebigu hadal noocaas oo kale inna maka qad alqad ilaynaa aflaada kabadiha aflaada kabadiha carabtu waxay isticmaalaan dhulka wax ku aasan oo kale markuu bannaanka yimaado ayay yidhahdaan dhulkii wuxuu soo tuuray aflaada kabadiha macnaha waxaa la sheegay khaalid inuu uu ku riyooday intuusan muslimin isagoo meel abaara oo baaba-a oo dhib badan ku nool oo markaas u baxay oo tegey dhul cagaar badan oo wanaagsan
oo biyo badan oo aad u wanaagsan oo indhaha iyo naftuba jeclaysanayso. ru'yadiiyo waxa li abubakar u sheegay, abubakar baa yidhi ilaahay wuxuu kaa soo saarayaa hadda waa intuusan muslimin shirkiga iyo dayqi iyo ciriiriga iyo noloshii kufriga iyo gaalnimada islaamka iyo cadligiisa iyo wanaaggiisa unu kugu soo saaraya. saas abubakar ugu fasiray. markuu khaalid shahaadada ku dhawaaqay ee uu muslimay wuxuu nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, rasuulka ilaahayow ilaahay ii bari ilaahay inuu dembigayga dhaafo dhibkii aan diinta iyo islaamka iyo adigaba idinkuu geystay oo aan diintan u geystay. rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, alislaamu yajubu maa qablahu, islaamku waa ka cafiyaa qofka wuxuu hore u sameeyey. markaas waxaa layidhi sanadka 8aad hijriyada ayay ahayd baa la yidhi. nebigu marka wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, alxamdu lilahi aladii hadaaka qad kunta araa laka caqlan tamanaytu an laa yuslimaka ilaa likhayrin. ilaahay baa mahad iskale allihii ku hanuuniyey, waxaana arkayaa buu yidhi oo iga kaa muuqda caqli aan rajaynayo waxaan khayr ahayn inuusan kuu dhiibin. khaalid nin caqli badan buu ahaa, caqligaasaana keenay inuu diinta ilaahay ugu khidmeeyo, ilaahay baana waafajiyey. akhwaani marka khaalid ibnulwaliid taariikhdiisa wax lasoo koobi kara ma ahayn. nin shaksiyadiisu ay saa tahay ayuu ahaa. waxaan darsixiga ka sheekay doonaa haddii ilaahay yidhaahdo dagaaladii uu la galay nimanka la yidhahda beershiyaankii iyo roomaanka iyo siduu u jabiyey, iyo waxaana la sheegay khaalid 100 dagaal inuu galay ama ka badan baa la yidhi. weligiina jaahiliyatan wa islaaman dagaal uu galay lagama adkaan, lagamana guulaysan, weligiin hogaamiyuu ahaa. marka nin khayr badan buu ahaa. dhiiggiisa qaaliga ahana diintan islaamka inay faafto ayuu u huray. asxaabta rasuulkana sidaa ayay wada ahaayeen, ninba ninka kale waa ka daraa. intaa ayaan maanta darsigayga muxuu aan maanta kusoo koobayaa. wixii aan saxay ilaahay xaggii ka ahaatay, wixii aan khalda waa nafteeda iyo shaydaan. ilaahayna muxuu ahaa hana waafajiyo tubta toosan. muslimiintana ilaahay diintooda kuwa jeclaada allaha ka dhigo, culayska saaran oo jahliga diintana allaha ka qaado. ilaahay kuwa diintiisa ku dhaqmana allaha naga dhigo, ku sharafooba, kulliibaana aakhira iyo adduunna ku badbaada. intaa ayaan maanta kusoo koobayaa. wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. سرنا اسألوا التاريخ عنا